حربنا عاوز كل شيء إن نقول سني بلوني قلنا ده كل لموضة قاعدة يكوب هالكوبا ماشي هلا ومهتنتهين وسيجوني وبلمدنا ماملكا وفرح سنة مرة المرسيد حاد نبرة waxaan ku guuleysanay inaan marka koobaad aan ciyaartii finalka u soo baxno waxay ahayd record aanan horay maxaa la yiraahdaa xulkaysan u gaarin marka inaan final imaano guulay ahayd ciyaartooyda ay qofkii zeeraa galo iyo ama wadanka dibadiisa inta joogto duulaha inta noolba waxaan rajeynayaa asatiim inaan isku haysano wasiirkii hore amniga dawladda federaalka Soomaaliya horeyna u soo noqday ciyaaryahan kubadda kolayga wadanka Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa kulan mahadcelinay dhiirigelin ugu yimid ciyaartooyda Hirshabelle ee degan hotelka Sanaag ee magaalada Muqdisho xildhibaanka ayaa xiriir kubadda cagta wasaaradda ciyaaraha ee ciyaartooyda kaga mahadceliyay sharafta ay u soo hoyeen dadweynaha reer Hirshabelle maadaama markii ugu horeysay ay soo gaareen heerka ugu dambeeya ciyaaraha maamul goboleedyada munaasabadan ayaa ahayd mid kooban oo xildhibaan Ducaale ugu talagalay inuu ugu mahadceliyo ciyaartooyda macallimiinta shaqada wanaagsan ee ka qabteen ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir maadaama ay soo gaareen heerka ugu dambeeya waxaana ugu horeen ka hadlay munaasabadan qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay xildhibaanka oo runtii ahay dhiirigeliye sporti ahna qabiir sporti oo markii horena ahay dadkii sidoo weyn ugu taagnay ama dhiirigelinta ama garab istaarka weyn u muujiyay naadiga Hirshabelle runtii oo guul weyn soo hoyday runtii waan guuleysanay waxaan rabnaa caawa isku sheegno inaan guuleysanay balooniguna de kulli lamooda qaadayo koobka hal kooba meesha yaala marka dhalinyarteena sharafta badan xildhibaanka asaa sheegi doona munaasabada iyo halka hadalka uga aadan ujeedadu waxay tahay inaan guuleysanay ilmaheena dhalinyarteena dadaalka ay muujiyeen runtii meel fiican ay imaadeen ilaa heer waxaan gaarnay rigoorno ciyaarta ku dhamaato goolna lagama badin meel fiican aan soo istaagnay runtii waxaad muujisay ciyaar wanaag iyo waxaad muujisay discipline iyo wax walba waan idinku faraxsanahay insha Allah waxaan rajaynaynaa sanado kale sida ay galmudug shalay u gaftay ay maanta ay u badisay ayaa idinkuna waxaan idinkaga rajaynaynaa sanadada kale inay nasiibku idin saacido hadwaalid insha Allah yaa la rajo dhigin waxaan rabnaa maamulka ciyaaraha iyo Hirshabelle iyo wasaaraduba inay macallimiinta iyo ciyaartooydaba ay si gaar ah u fiiriyaan yaana biri markii la yiraahdo banooniga la ciyaaraya yaana banaanada laga gogoobin hadda ha laga warhaayo hadda ha la isku aruuriyo wixii baxayna banaanadooda ha lagu haayo wixii joogana barta ay joogan ha lagu haayo dhinaciisa waxa hadalada mahadcelin ka jeediyay munaasabadan wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Hirshabelle Maxamed Ceente isagoo kaga mahadceliyay xildhibaan Ducaale doorka wacan oo ka qaatay dhiirigelinta abaabulka intii ay socdeen tartankii maamul goboleedyada iyo garab istaagii uu muujiyay ciyaartooyda Hirshabelle waxaa wali barajeeninaa in aan iswada raacno jawhar aan tagno marka saasna loo diyaar garoobo haday suurto gasho insha Allah taala marka aad iyo aad u maasantiin xafladan waa dadaalkaad muujiseen in uu xildhibaanka idin dhaho waa dadaasheen dhamaanteena aan idin leenahay taageerayaasha qof walba xalay tusaale yar idin siinaa dadka qaar waxay qiyaasayeen markii oo ciyaarta soo dhamaato inuu madaxa xanuuni doono inay qaar maxaa la yiraahdaa dhamaan waa caadi Allah aad nooma saameyn sababta ma taqaanaan kubadana loogama fiicnayn waa ka jaanis fiicnayn waa ka fursado fiicnayn rigoorana inay waxba ahaynaan ogeyn marka waa taageerayaasha iyo dadka dhan waa aad ay u shaafisan yihiin marka aad iyo aad u maasantiin gabagabadii munaasabadan waxaa hadal mahadcelin ka jeediyay wasiirka hore amniga dawladda federaalka Soomaaliya horeyna u soo noqday ciyaaryahan kubadda kolayga wadanka Maxamed Abuukar Islow Ducaale wuxuu sheegay in markasta uu ka warqabi doono ciyaartooyda guushaas taariikhiga u soo hoysay maamulka Hirshabelle caawa halkan kale u imid inaan balanno xafladii weyneyd saan dhigan lahayn waqtigan dhigan lahayn inaan ka balanno si gooni oo balami doona duulaha maamulka macalinka iyo wasiirka wada si gooni u kulmeena waqtigan qabsan doona maraan kulmi doona markaasna waxayna lagu talagalay iyo abaalmarin iyo waxaad muuteystay markaas aan bixin doona hadii Ilaahay raahdo waana faraxsanahay waxay ka darnaaleen maanta ama shalay hadii 3 eber in nalaga soo bajo taas nooc kale aan halad laakiin ma dhicin weli waxaan aaminsanahay hadii saacad yar lagu dar lahaa 15 saac kadib daal badanaa ka muuqday ciyaartooyda marka ma dhicin waa ku faraxsanahay waa hambalyeynayna saan u sheegnay sporti waa isdhexgalka bulshada waa dadka sidooda waa dad walaalo waa dad ehel ah xagga waxa ka ciyaaray dad ka soo jeedo Hirshabelle halkan waxa ka ciyaaray dad ka soo jeeda galmudug waa dadka waa isla wada dhasheen